السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتود السلامي ملك سدد دنيا دافيدي عالم كتشوكتان إن شاء الله وتعالى سدد الوانكي نصربا كسور كيسين waxaan doonayaa inaynu maanta barnaamijkeena ku soo qaadano toban mahmaahood mahmaayada Soomaaliyeed oo run ahaantii u arkay inay ku jiraan nuxur iyo faa'iidooyin badanba laakiin adigu waxa tahay qof iyo fikir haddii lagu oran lahaa toban mahmaahood oo ka mid ah mahmaayada Soomaaliyeed inoo soo toban kale inaad soo xuli lahayd baa laga yaabaa laakiin aniga kuwan waa fikirkayga sidoo kale waan la socdaa inay barnaamijyadii inaga yara kala fogaadeen taasina waxa weeye inaan u fadhiisan doono imtixaan shahaadi ah sidaas ay barnaamijyadeeni u kala fogaadeen una yara kala fogaan doonaan inta imtixaanku naga dhamaanayo waxba yaan hadalkeedii ku daaline barnaamijkeena aynu toos u guda galno haddaynu u guda galno barnaamijkeena maanta mahmaada kuwaad ee noo soo qabanaya waxa weeye mahmaada Soomaaliyeed ee odhanaysa arrinkeen ahaw ama aqbalkeen ahaw mahmaada Soomaaliyeed oo ina tusaysa inuu qofku noqdo qof fikirkeena ama inuu qofku noqdo qof dadka fikirkooda saxan ku raaca laakiinse haddii qofki aanu fikirkeenin dadkana fikirkoodii saxsanaa aanu ku raacaynin qofkaasoo kale waxa loogu mahmaahaa ama arrinkeen ahaw ama aqbalkeen ahaw tuducda iyo nuxurka taabanaysa mahmaadaasina waa intaas haddaynu soo qabanno mahmaadiina labaad ee barnaamijkeena ku soo qaadanayno waa mahmaad Soomaaliyeed oo odhanaysa faqfagaaruhu yimaada mahmaada Soomaaliyeed oo ina tusinaysa si kasta warkaad u qariso inuu maalin maalmaha ka mid fagaaraha iman doono warkaasi siduu doonaha ku soo baxo ama aad u dhiibto qofaan warkii si wanaagsan u ilaalin oo isagii warkii ka baxo ama si kalaba warkaasi ha u soo baxee waxay mahmaadan kuu sheegaysaa si kastaad u qariso sanado xataa haddii qaadato qarintiisu maalin maalmaha ka mid iman doono fagaaraha mahmaada Soomaaliyeedna nuxurka iyo intii sheegayso waa intaas haddaynu soo qaadano mahmaadiina saddexaad aynu barnaamijkeena ku soo qaadanaynaa waxayna odhanaysaa mahmaada Soomaaliyeed hani guntay ka tolantaa mahmaada Soomaaliyeed oo runtii waxyaabo aad iyo aad u badan oo aan la soo koobi karin ka hadlaysa laakiinse nuxurka iyo faa'iidada ka hadlaysa ayaa ah in wax kasta xagga ugu hooseysa laga soo qaado in wax kasta stable laga soo qaado balse wax kasta meesha ugu sareysa aan lagu boodin ee barbilowgiisa waxa laga soo qaado ilaa marka dambe la soo dhisana oo meel aad iyo aad u sareyso qof kasta oo horumar gaadha waxa horumarka ka gaadhay wuxuu ka soo bilaabaa xagga hoose mahmaada Soomaaliyeed ee odhanaysa hani gunta ayay ka tolantaa nuxurka iyo faa'iidada ku tusinaysa waxa weeye in wax kasta laga soo bilaabo halka u hooseysa markaad ka soo bilowdana sidaad u dhisayso in wax kasta ku gaadhayaan meesha iyo meeshaad ka doonaysaba haddaynu soo qaadino mahmaadiina afraad eenu maanta barnaamijkeena ku soo qaadanaynaa mahmaada Soomaaliyeed waxayna odhanaysaa gari laba nin kama wada qosliso mahmaada Soomaalida run ahaantii aad ayay dhexdeeda ugu caan tahay oo waxay ka hadlaysaa faa'iidadeeduna tahay in haddii laba qof gar loo qaado midna uu farxayo midna uu cadhoonayo garina laba qof kama wada cadhaysiiso garina laba qof kama wada farxiso oo haddii gar la qaado result iyo natiijada ka dhalanaysa waxa weeye in labadii qof midna xanaaqo midna uu farxo mahmaada Soomaaliyeedna waxay odhanaysaa gari laba nin kama wada qosliso oo had iyo jeer waxa loo isticmaalaa marka gar la qaadayo ninka laga guuleysto iyo ninka guuleystaba gari laba nin kama wada qosliso ayaa hore loo yidhi nuxurka iyo faa'iidadaas sheegaysana waa intaas haddaynu soo qaadino mahmaadiina shanaad ee barnaamijkeena ku soo qaadanayna maanta waxa weeye waa mahmaah laba ley ah oo ina odhanaysa laba ayaa rag u liita calooshi la ciyaar iyo cilkama kore mahmaadan oo run ahaantiina tusaysa labada nin ee ragga u liitaa inay yihiin ninka markuu calooshiisa wax u helo ninka marka uu naftiisa wax u helo markaas la ciyaaro oo dadkii ilaawo dadkii abaalka u galay iyo qof kastana ilaawo oo calooshiisa iyo naftiisa la ciyaara iyo inay tahay ninka ciilkan ka korin ninka marka wax lagu sameeyo aan waxaas ilaawin ee ilaa sanado dambe sii haysta in labadaas nin ee sifooyinkaas leh ee yihiin labada nin ee ragga u liita oo mahmaada Soomaaliyeed
ay noo sheegaysaa laba ayaa rag u liita cilkama kore iyo calooshii la ciyaar nuxurka iyo faa'iidada ay noo sheegaysaana waa intaas. mahmaadiina lixaad aynu ku soo qaadanayno barnaamijkeena waxayna odhanaysaa sida tan: waan baahanahay bahal looma cuno. run ahaantii maamaadan waa maamaa aan aad iyo aad u jecelahay, sababtoo ah nuxurka iyo faa'iidadayna tusinaysa ayaa ah in haddii aad wax weydo, in haddii ay baahi kugu dhacdo, aana micnaheeda ahayn in naftaadu ka liidato oo ay ka hoosayso nafooyinka kale. adigoo baahisaysan waa inaad dadka ka dhex muuqataa, waa in korkaagu sharaf yeeshaa. balse haddii ay baahi ku qabato maaha isla markaas inaad tidhaahdo waan baahanahay oo bahalka ayaa xalaal ii noqonaya. inaad naftaada mid dulli ah ka dhigto, inaad korkaaga mid bilaa sharaf ah ka dhigto. adigoo baahisan ayaa haddana dadka laga noqdaa mid aad iyo aad uga dhex muuqda. waan baahanahay bahal looma cuno. nuxurka iyo faa'iidadii mahmaadaas inoo sheegaysana waa intaas. haddaynu soo qaadano mahmaadiina toddobaad ee maanta barnaamijkeena ku soo qaadanayna waxayna odhanaysaa sida tan: adkaysi dambe lahow ama feefaro lahow. mahmaada Soomaaliyeed inta badan waxaa loo adeegsadaa qofka wax laga kari waayo oo lagu yidhaahdaa ama adkaysi dambe lahow, oo hawshan markaad gasho hadhow adkaysi u yeelo, ama afeefaro lahow oo iminkaba hawshan khatartaas ayay leedahay hadda isaga sii joogso. mahmaadana nuxurka iyo faa'iidada ina tusaysa ayaa ah hawl kastaad gelayso inaad iska eegto oo haddii aad gashan adkays u sii yeelato, haddii aanad adkaysigaa lahayna afeefaro aad lahaato ood hawsha halkeeda ku xidhaad isaga joojiso. nuxurka iyo faa'iidadayna tusaysa mahmaadanina waa intaas. haddaynu soo qaadino mahmaadayna sideedaad waxayna odhanaysaa ood kaa dheeri kuma dhaxan tirto. run ahaantii mahmaadani waxayna tusinaysaa in waxaad haysato uun adiga kugu filan yahay oo wax isla markaas kaa maqan aanu adiga naftaada wax u taraynin. haddii aad tiraahdo waxaan aan haysto ma arkayo oo wax meesha iyo meeshaas ii yaala ayaa wax ii taraya, run ahaantii ood kaa dheeri kuma dhaxan tirto. oo waxa aad haysato waa inuu kugu filnaadaa, waxa aad haysato waa inuu kaa muuqdaa. intaad haysato adigu isku kafee oo isku filnaysii, waayo soomaalida ayaa ku maahmaahday ood kaa dheeri kuma dhaxan tirto. nuxurka iyo faa'iidada iyo mucdayna tusayso mahmaadaasina waa intaas. haddaynu soo qaadano mahmaadiina sagaalaad waxayna odhanaysaa mahmaadani sida tan: haddii dayaxba la waayo xidigaha lagu gudaa. mahmaada nuxurka iyo faa'iidada leedahay ayaa ah in marba waxaad haysato wax lagu bilaabo, ee waxaanad haysan aan laga fikirin. waxaas isaga hadhow imanaya, laakiinse hawl kasta iyo mashruuc kastaad gelayso waxaad hayso ku bilow, hadhowna baadh oo ku xigsii wixii aanad haynin. mahmaadanina waxay ku odhanaysaa haddii dayaxba la waayo xidigaha lagu gudaa. mashruucu si kasta ha u adkaado, hawshaasi si kasta ha u adkaato, balse garo in waxaad hayso aad hadda ku bilowdo oo waqtigaaga aanad iska lumin. wixii aanad hayninna hadhow wixii soo bilow oo halkaa ka sii bilow, wixii isaga ayaa hadhow toolo imanaya. nuxurkii faa'iidadayna tusayso mahmaadanina waa intaas. haddii aynu soo qaadano mahmaadiina tobnaad isla markaanaynu kusoo gabagabaynayno barnaamijkeena waxayna odhanaysaa sida tan: nimaan wax dhigan baa dhereg dambe u aayin. mahmaada nuxurkii faa'iidadayna tusaysa ayaa ah waxaad haysato haddii aad markaa kala dhigan weydo, haddii aad markaa mustaqbal usii samaysan weydo, in hadhow toolaad ka qoomamaynayso oo ka shallaayayso. sababtoo ah waxaad markaa haysato haddii aad ku baashaasho, haddii aad xad u kala yeeli weydo, hadhow way kaa dhammaan xilligay doontaba ahaatee. hadhowna waxaad si soo taagi doontaa faaruq. balse waxaad isla markaa gacanta ku hayso haddii aad kala nidaamisaad kala habayso, hadhow toolo kama qoomamaynaysid oo faa'iido ayay adiga kuu taraysaa. mahmaadan ah nimaan wax dhigan baa dhereg dambe u aayin, intaas ayay ku tusaysaa. nuxurkeediiyo faa'iidadeeduna waa intaas. barnaamijkeena maantaynu kaga hadlayna mahmahyada Soomaaliyeed aan horeba idinku sheegay inaynu 10 ku soo qaadanayno. intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa oo kusoo idlaynaynaa. haddii aad nagu cusubtay markii koowaad ay kugu tahay kanaalkan, nagu soo biirsi aad waxyaabo badan nooga faa'iido. waxaanu jecelnahay waa adiga faa'iidadaada. waa anigoo Maxamed Siciid Ali Maxamed Xikmaawi, halka ka dheehanaysaa barnaamijkana waa Kaska Media. salaamullaahi calaykum.